السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودة وكنالك عفيفة ورسمة maanta xarawaayna kula wadaago 9 arrimood oo qof kasta gadaal u celiya يعني qof walba markuu rabo inuu hadaf sameeyo mise inuu gool gaaro يعني goosh waxay rabtaa ahaata aad raadinaysid hadafka waxa uu rabo aad raadinay laakiin mar walba waxa jira 9 arrimood oo qofka gadaal u dhiga يعني ayagoo ay kala duwan tahay hadafku dadku ay kala bursanayaan masarayada dadku ay kala leedahay hadana 9kan arrimood isku mid ayay ka yihiin oo 9 arrimood qofka gadaal uga dhiga mise dib u reeba mise u diida in meeshuu rabo uu gaaro waa 9kan arrimood marka maanta waxaan isku dayaa inaan 9kaas arrimood aan kula wadaago arinta koowaad ayaa waxa ay tahay rabitaan cayiman la'aantiis qofka bini'aadanka ah haduusan rabitaankiisa cayimnayn mise waxa uu rabo uusan aqoonin way ku adkaa kartaa in uu hiigsi sameeyo sababtoo waxaad rabtid ma taqaanid laakiin maanta aan ta fariisato aad kala saarto waxa aad rabtid iyo waxa aadan rabin aad kala saarto waxa ku suurta galaysa waxa aad rabto inaad diirada saarto haddana mararka qaar waxa jira dadka qaar inay waxyaabo badan hal mar isku rabaan sidaas la ajligeena waxa dib ku noqoto inay kala saaraan mise ay hormariyaan rabitaanka muhiimka ah marka mar oo aad ogaatid waxa aad rabtid haddana aad ahmiyad kala siiso rabitaanada sababtoo rabitaanka qaar waa mid aan wax badan mustaqbalkaada ku soo kordhinayn waa mid aadan yani gaarid badan aad ama gaarid fiican aadan ka sameeynin rabitaanada qaarna saayiday muhiim kuugu yihiin oo waxa laga yaabaa dad ku dhaqaaqdo inaad noloshaada isbedel ka sameynayso marka mar walba rabitaankaaga ogaatid haddana rabitaanadaada aad kala saarto oo aad ma aragtay u kala saarto u kala ahmiyad kala saarto oo mar walba ay ku sahlanaato inaad hadafka aad rabtid aad gaartid sababtoo wixii aad rabtid waa taqaanaa marka inta badan rabitaan cayiman la'aantiis waa qodob ka mid ah qodobada dadka gadaal u raaca mise u diida in ay tilaabo hore u qaadaan arinta labaad ee dadka gadaal u dhigta ayaa waxa ay tahay naf edbin la'aanta qofka bini'aadanka inuu naftiisa edbin karo oo naftiisa uu ka adag yahay waxa ay furo u tahay qofkaas inuu hadafku rabo inuu gaaro qofkaas inuu waxa uu rabo inuu sameeyo qofkaas inuu sameeyo waxa ay tahay inuu sameeyo yani waxa waajibka ah inuu sameeyo inteena badan waxa laga yaabaa inay dayacaan waxa waajibka inay sameeyaan mise inay dayacaan waxa ay tahay oo ahmiyada mudan in ay sameeyaan marka hadii aadan naf edbin lahayn waxa ma aragtay dhibaato kugu noqon doonto inaad hadaf yeelato mise inaad gaarid sare lahaato sababtoo ay naftaada ayaa ka adag naftaada ku jiheeyda qaabkii ay rabto laakiin adigu awood uma leeyahay inaad naftaada u jiheysid qaabkii aad rabto oo naftaada aad u jiheysid dhanka yoolkaaga sidaas la ajligeed naf edbin la'aantaas darteed inaad guulaysato mise inaad hadaf cayiman gaarto mise inaad hawl si wacan aad u fuliso way kugu adkaanaysaa dadka waxaad arkaysaa qof guulo badan sameeyo qof ahdaaf badan sameeyo aad arkaysaa iyo qof aan wali waxba sameyn farqiga u dhaxeeya ma ahan inuu qofkaan hiba leeyahay ma ahan qofkaan inuu karti gooniyo leeyahay kaliya waa naf edbin markastoo aad naftaada ka adkaato waa markastoo aad ka adkaato howl kasta oo ku hortaalo mise aad awood u yeelato howl kastoo ku hortaala inaad dhammayso arinta saddexaad ee dadka dib u dhigta ayaa waxa ay tahay dib u dhigashada badan yacni inuu qofku shaqo hadda uu qaban karo uu yiraahdo biriyan qabaa waa cudurka ugu ba'an ee dadka gadaal u reeba waa dhibaatada ugu badan ee dadka lugta haysa dadkuna ay hore ugu soco waayeen horena ma aragtay waxyaabaha hor yaala ay u qaban waayeen mise guul la taaban kar ay u gaari waayeen haddaa tahay qof mar walba dib u dhigta mar walba yiraahdo waxaan sameynaa xilliga saxda ah waxaan sameynaa markan agabka saxda helo waxaan sameynaa markan anagu si saxan u diyaar garo yani qof noocaas haddaa tahay waa kugu adkaa doonta hadafka aad rabto inaad gaartid xaqiiqda jirtaa waxay tahay waqti saxa inuusan jirin oo hadda aan ka ahayn sidoo kale agab sax ah uusan jirin agabka aad haysata maahan qofka bini'aadanka waxa laga yaabaa markuu shaqooyin gaar ah qabanayo inuu agab gooniyo u baahan yahay laakiin xaqiiqada jirta waxay tahay shaqo walba inaad ku bilaabi karto agabka aad heli karto mise agabka waxa aad haysato lacagta aad haysato aad ku soo iibsan karto oo uma baahnid mar walba agab saayid u waaweyn uma baahnid si aad u bilowdo waxa aad rabto sidoo kale uma diyaar garoobi kartid sida saxda ah oo qofka bini'aadanka waxa uu diyaar noqdaa inta hanaanka hawshan lagu guda jiro oo mar walba aad shaqo bilowdo xitaa hadaadan u diyaarsanayn intaad shaqadaas ku guda jirto naftaada diyaarina ku socoto oo naftaada isbedel ku soconaya naftaada waxbay baranaysaa marka marmarsiyaha ka dhigan waqti sax ah inaadan haysan agab sax ah inaadan haysan iyo sidoo kale adigu inaadan sida saxda u diyaarsan wax marmarsiimo ah ha ka dhigan taas waa dib u dhigasho mar walba dib u dhigashadaadu ay badan tahay waa mar walba ku suurta gali weyso waxa aad rabto inaad sameyso yoolka aad rabto inaad gaarto qodobka afaraad mise arinta afaraad dadka dib u dhigta ayaa waxay tahay xiisaan la'aan qofku hadduusan waxaan xiise u hayn
uusan xamaasad u hayn way ku adkaanaysaa inuu waxaan bilaabo, wayna ku adkaanaysaa inuu waxaan sii joogtay. waxaa laga yaabaa dadka qaar inay shaqo qaar u bilaabeen sababtoo ah dad kale hore u sameeyaan, sababtoo ah bulshada dhanaa wada samaysa. laakiin mar walba haddaadan waxaas xiiseyn u hayn markaad maalmo wado waad kasoo laabanaysaa, allah xiiseyn uma haysid. laakiin mar walba isku day si aad u ogaatid waxa ku xiise galinaya iyo waxa aad xamaasada ka helayso. shaqada qaabkan haddaysan xiise ku galin mase aysan xamaasad ku yeelin, raadi qaab kale oo aad xiise ka heli karto mase xamaasad ku yeeli karo si aad u gaartid yoolka aad rabto. qofka bilaadanka yoolka uu rabo inuu gaaro way ku adkaanaysaa hadduusan xiiseyneyn mase maaragtay xamaasad ku riixaysa aysan jirin. qodobka shanaad ee dadka gadaal u dhiga ayaa wuxuu yahay khuraafaadka. qofba qofku ka khuraafaad badan wuu ka dibudhac badan. haddaa taa qof khuraafaad badan aamino waxyaabihii hore bulshadu ay maaragtay isku maaweeri jirta, haddaa taa way kugu adkaanaya inaa isbedel samayso. haddaad aragto dad aanba isbedel sameynin, macnaha waxay tahay dadkaas khuraafaadka madaxooda ka buuxa aasaayid u badan. marka haddaad mar walba taa qof khuraafaad badan inaa hadafkaada gaartid way kugu adkaanaysaa. waxaa la yiri haddaad waxaa samayso waxaase kugu dhacaya, haddaad tan yeesho tanaa kugu dhacaya. yacni haddaad ee samaysa biya kugu dhacaysa, waa khuraafaad noocaasa. marka bal adigoo sharaysa natiijada isku day bal horta inaa waxaan tijaabiso. markaad tijaabiso waxaa khuraafaadka ku sheega hadday kuu soo baxaan haa, laakiin adoon tijaabin sideed khuraafaad u aaminaysaa? adoon waxaan tijaabin sideed u aaminaysaa wax dad kale ay ku dhaheen oo mala awaala? inta badan khuraafaadka waxaa abuura dad ayagu cabsanaya inay waxaan sameeyaan, dad ayagu ka cabsanaya mise dad raba inaan heerkan la gaar oo dadka kale si ay ugu diidaan ay khuraafaadkan mala awaaleen, mise dad raba inaan marnaba laga fiicnaan. hore naga soo hadalnay muuqaalka dadka inaysan rabin isbedelkaaga. marka khuraafaadka mar walba waxaa sameeya dad yoga aan rabin inaad adigu isbedesho. marka mar walba oo khuraafaadkaagu badan way kugu adkaanaysaa yoolkaaga inaad gaarto. si yoolkaaga mise hadafkaada aad u gaarto aad guul u samayso, isku day inaad khuraafaadkaada aad ka takhalusto. qodobka lixaad oo muhiimka ayaa waxa uu yahay oo dadka gadaal u dhiga joogtayn la-aan. inteena badan inaan wax bilowno way noo fududa, laakiin inaan waxaan inta joogtayno aan ka salgaarno ilaa dhammaadka aan tagno way nagu adkaanaysaa. haddaadan joogtaan lahayn dhib ayay kugu noqonaysaa inaad gaarto natiijada asalka ah ee loo baahnaa. dhib ayay kugu noqonaysaa inaad gaarto gaaridii saxda ahayd ee aad rabtay. joogtayn la-aanta waa waxaa dadka kala saara, oo waxaa arkaysaa qof aad shal howl isla bilaawdeen uu qofkii meel fiican ka gaaray adiguna aadan waxba sameyn. farqigaas kaliya waxay tahay qofkii markii shalay oo bilaabo wuu joogtay adna maadan joogteen. wax walba markaad joogtaysid ma isbedelkii hore inuu ka imaado muhiimaan. hadba isbedel yaraa kugu darsamaya, hadba wax yar faa'iido yaraa kugu darsamaysa. joogtayntaas marka waxay accumulate garaynaysaa waxyaabo badan oo aad sameynaysa, kadibna wax badanaa kasoo baxaya. marka dadku waxa ay heerka ay rabaan u gaari waayaan waxay tahay joogtayn la-aan. isku day heerka aa rabto mise guusha aa rabto, hadafka aa rabto intuu raba ha laqada inaad wax ka bilowda kadibna joogtayso. maalinna tilaabo yar aa u durugto dhanka hadafkaas aad rabto. hadba tilaabadaas aad u durkayso waxay kuu suurtagelinaya inay usii dhawaato meesha aa rabto. marka joogtayntu waa waxa ugu badan ee dadka kala saara, mise waa waxa ugu badan ee suurtageliya inuu qofku hadafkiisa gaaro mase inuu gaarid sare lahaado. qodobka toddobaad ayaa wuxuu yahay go-aan qaadasho la-aan. qodobkan go-aan qaadasho la-aanta waxa uu la xiriiraa qodobkii hore oo ahayd dib u dhigista. oo qofku hadduusan macnaha go-aan qaadan karin, macnaha waxa ay tahay dib u dhigasho badan uu sameynaya hadduusan hadda go-aan qaadan karin. waxaa laga yaabaa dadka qaar markii ay rabaan inay hadda go-aan qaataan inay ku fikiraan beri inay go-aankaas qaadan doonaan, beri ka maaran oo go-aankaani sax noqon doono, laakiin hadda aysan waqtigii saxda ah aysan ahayn. marka go-aan qaadasho la-aantu waa walaasha dib u dhigashada. labadoodaasna waxay mar walba kaa xaniban inaa hore tilaabo u qaado. dadka qaar waxaa arkay go-aan inta maanta qaadaan caawa markay ku seexdaan beri bedelaya, inay inta go-aan saa ka qaadaan ay galabta bedelayaan. yacni mar walba go-aankaada babadasho isbabedelkaada uu badan yahay waa mar walba ay kugu adkaato inaad tilaabo hore usii qaato ood hore usii socto. sababtoo wixii aad go-aanka ka qaada waadba ka laabatay, fursadaad ku joogtaysa ma haysatid. wixii aad go-aanka ka qaata waad ka laabatay, fursad naftaada aad ugu edbisid inay waxaan ka shaqayso maba haysatid. marka go-aan qaadasho la-aanta waa qodob ka mid a qodobada dadka dib u dhiga, dadkana u diida inay isbedel samey diidaan mase guusha ay rabaan inay gaari waayaan. qodobka sideedaad ee dadka gadaal u dhigaya waxay tahay aqoon qofkan ku filan la-aanteed. qof kasta markuu hadaf rabo inuu gaaro mise inuu guul gooniya rabo inuu sameeyo waxaa jirta xaddi aqoon oo loo baahan yahay. haddaadan xaddigaas aqoon aadan haysan waa ka niyad jabaysaa inaad hore usii socoto, inaad waxaan bilowdana caajis ayaad ka dareemaysa sababtoo aqoon ku
kugu filan ma haysatid marka haddaadanba wax aqoon kugu filan aadan haysan inaad shaqadan ka shaqayso dhibay kugu noqonaysaa. aqoon la-aantaasna waa mid inta badan dadka gadaal u celisa. saatan aga gudubto isku day marka aad rabto hadaf inaad samayso mise wax inaad samayso inaad yeelato aqoonta yar ee looga baahan yahay. aqoontaas yarta ee looga baahan yahay inaad yeelatan kaliya waxaa u baahanta inaad naftaada ku maalgeliso waqti yaroo kooban mise haddii wax yaroo maala loogu talagalay inaad ku maalgeliso. inta badanna aad waxaas si dhaba mise si baraatika aad samayso aad ku naqnaqayso. aqoonta lagu sheegayo ma ahan mid ku imaata si iskeeda ku imaata, ma ahan mid ku imaata hal maalin gudaheedna ku imaata. waa mid ku imaata yacni waqti ku imaata, sidoo kalena ku imaata ku celcelin ku imaata iyo ku dhaqan ku imaata iyo ku dabaqid ku imaata. haddaadan waxaan dhaqan galin dabaq galin yacni kuma suurto galayso inaad aqoontii saxda ahayd aad lahato. inta badanna aqoon la-aanta waa waxyaabaha dadka gadaal u dhig. yacni aqoon la-aan kama hadlayo inaad qofku qandariiray, yacni inaad tusaale maanta aad wax yar samayso waxaa lagaga baahan waxaas inay aqoon yar u baahan tahay. aqoonta sadaada lahayna inay kuu suurtogeli weydo inaad waxaa samayso. marka isku day aqoonta yar ee looga baahan yahay hadafka aad leedahay inaad yeelato, raadiso qaab aad aqoontaas ku yeelan karto. qodobka 9aad ugu dambeeya ayaa waxay tahay diirad saar la-aanta juhdiga. qofku bilaadanka intuu juhdiga ku jiro hadduusan wax diirad saara lahaan waxaa ka dhalan kara arrimo badan ayaa ka dhalan kara diirad saar la-aanta. waxaa ka dhalan karta qofku inuu naftiisa u malayo inuusan waxba samayn, sababtoo juhdiga aad sameynaysaba maadan fiirin, juhdiga aad sameynaysaba il maadan yeelan, maadan diirad saarin. sidaas la ajligeed waxaa u malayna inaadan waxba qaban, naftaadaad hooseysiinaysaa. naftaada markaad hooseysiiso ood isku malayso inaadan waxba qaban waxaad dareemaysaa niyad jabkaas kadibna waxaa kugu suurtagalay inaadan horey maaragta tilaabo u qaadan. sidoo kale inaadan diirad saarin juhdiga iyo waxa aad qabanayso waxaa kugu keenaysa inaadan kala aqoon meesha aad marayso. sababtoo qofku markuu shaqo haysto waa inuu iska warhayo, diirad saara xagga uu marayo meesha uu joogo. haddaadan xagga aad maraysa meesha aadan joogin aadan ka warhayn waxaa laga yaabaa inaad wado qaldan aado, wado qaldanna aad waqti iskaga dhumiso, yacni wax aan shaqeyn aad waqti iskaga dhumiso. marka inta badan dadku ma diirad saaraan juhdiga ay sameynayaan, taasoo marka dambe ku kalifaysa naftooda inay hooseyn ka dareemaan, mase marka dambe ku kalifaysa wado qaldan inay ku dhacaan, sababtoo markii hore kamaysan warhayn waxa ay sameynayaan. taas la ajligeedna niyad jabay ku noqonaysaa. niyad jabkaasna waa wax ka hor istaagaya inuu hore tilaabo usii qaado mase hadafkiisii uu kasii shaqeeyo, sababtoo qofkii quus ayuu gaaray. marka 9kan qodobba waa 9 qodob oo kuu diidaya inaad tilaabo hore u qaado mise kuu diidaya inaad maaragtay hadaf samayso. 9kan qodob waxaan kasoo dhex qaatay bugga la yidhaahdo Think, Grow and Rich. waxay ahaayeen 30 qodob, laakiin waxaan u fahmay inay 9kan qodob yihiin 9ka qodob ee ugu muhiimsan. waana 9ka qodob ee anigu si dhab ah inta badan aan u arko, yacni inta badan waxyaabo badan oo anigu aan samey waayey, yacni 9ka ugu badan ee iga hor istaagtay ayay yihiin. waana 9kan waxaa sida ugu caansan ugu waaweyn oo hadduu qofku ka taqalluso ay gaari karo waxa uu rabo. marka 9kan waa u fahmay 9ka ugu muhiimsan in ay yihiin oo qof kasta oo bili-aadana yar iyo weynba ay noloshooda saameynta ku leedahay. marka waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.